banaanbaxan oo ahaa mid looga soo horjeeday madaxda maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu ka dhacay duleedka galbeed ee xaafadda Howlwadaag dadka banaanbaxa dhigayay oo u badnaa dadkii ka barakacay daadadkii ku dhuftay xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isu soo baxayaasha ayaa waxa ka dhex muuqanayay hooyooyin aad u dhibaataysan kuwaasi oo la ilmeynayay xaaladda ay ku jiraan qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa waxay sheegeen in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Sufurow iyo waliba madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare in ay jeebka ku shubteen gudiyadii loogu talagalay dhibanayaashii uu saameeyay webiga Shabeelle ummadda Soomaaliyeed isku mid in wax loo siiyo isku mid wax looga qabto waa rabnaa waa rajaynaynaa waana rabnay laakiinse godobaa nagala galay Howlwadaag waxaa laga galay godobaa laga galay maxaa jira 15 maalmood ay ku jiraan Boondiweyn iyo Howlwadaag halkaan waxaa la yiraahdaa airportkii magaalada Beledweyne hore Addis Airport la yiraahdaa waxaa soo barakacay dad qaxooti ah oo aad u fara badan oo ka soo barakacay xaafadda Howlwadaag alxamdulillah dhibaato ilaahay u keenay waayo cid looga caroonayo ma jirto hay'adaha samafalka dadka ganacsatada waxaan sheegaynaa meeshaan wali cid wax ka bixisay ma jirto waxay waad arkaysaan maxaan ku raadayay meeshaan dadka malqaluuqa jooga iyo qaabkii u taalo fiirinaysaan dadka Soomaalida ah oo ganacsatada ah ama wax ka qaban kara barnaamijyada noocaana dadkaana waxaan sheegaynaa inaan wali loo imaanin bana aan loo madaxda dawladda waxay ku degtaa garoon ummadaas oo reer Eljaal waxa u furan wadadii Boosaaso u furan garoonka u furan annaga garoon ma hayno wada oo soo gasho ma hayno godoon baan nahay dadka qaarkiis dooman habeenkii raashin loo geeyo dooman raashin loo geeyo wax hay'ad ah ama maamul ah ama dawlad ah oo noo yimid oo haba yaraatee ummadaas geedaha ku saaran yimid ma jirto dawladda waxaan leenahay way ilowday Boondiweyn iyo Howlwadaag way ilowday dantaas marka ay haday dan kale yihiin waxaan ku cusubnaynaa in si degdeg u soo gaaraan ummadda waxa soo daatay ummadda shubab biyoda ka bilowday daawo ma haystaan waalo wax farsadaan ma haystaan biyo ma haystaan bac ma haystaan roob galaan ma haystaan bacay oo u jeedin sidoo kale dadka banaanbaxa dhigayay ayaa digniin adag u diray shirkadaha Barakaad iyo Dahabshiil oo ay sheegeen in gurmadiyadooda ay ku ekeeyeen deegaano dad gaar ah ay degan yihiin waa sida ay hadalka u dhigeen Barakaad iyo Dahabshiil Barakaad wixii kaar oo qorxsan ka yeelo dhan dhulka la dhigaya Barakaad wixii qorxsan ka yeelo oo kaar oo la dhigaya waa digaynaa Barakaad waana dulantay xuquuqda inay hor u cuntay dadka inay lusutay waana dulantay Dahabshiil waa la mid wax alla wixii xuquuq hoos qorxsan ku lahay wallaba xaafad ay ku lahaayeen bari ay keeneen reer bari way waa digaynaa waxaan hadda nala tacaaluhay MCAtka bulbul ayaan hadda u diray dadkii hadda shombiyoodka ku dhacay biyaha gal ha ku dhaxdinto iyo wardi Cabduqaadir Cumar Ibraahim Cabduqaadir Nadaara hargalka RTN Beledweyne